saaxiibkay garaadka garaad Cabdirashiid dhinacan dee waxaan ka ahay geeley marka hadda xataa ruuxeeda isma hubo inay wax isku keenadan yihiin in kale kulankan oo muxuu ahaa meeshan halkan Twitter space in la yiraahdaan oo malaynaya hadii ay isaga khaldanayn intaas kadib waxaan ka cudur daaranayaa daahitaanka yar oo aan dahay oo laba qaybood iskugu jiray qayb markii hore oo aan howlka imado wada aan marayay xogaan ku daa أنا runtii arrintan sheekha walaalkay Sheekh Xisi iyo Abay Xaliima iyo Saadiya iyo dhammaan teamka meeshan ka odayaasha iyo islaamaha daayirahdo Axmaan iyo Mahane iyo odayaasha islaamaha ee kala ku aadan lama yaqaan dhammaantiin waa mahadsantihiin intaas kadib walaalayaal hawshan runtii waa hawl weyn waa hawl Soomaaliya kaliya maahane ee Afrika dhan taariikh runtii anaga noqormaysa sidoo kale waa fariin dirmaysa oo ku wajahan qof kasta oo Soomaaliya mas'uuliyad ugu sareysa ilaa ay tan ugu hooseysa ka qabta qof kasta inuu maaragtay uu garto haddii uu wax toosiyo in dadka Soomaaliya abaal marin doonaan haddii uu wax qaldan inay kula xisaabtami doonaan طبعا qofka xafiiska fadhiya oo bini'aadam waxna oo saxaya waxna si kale u dhahayaan hawshan runtii markii hore waxa bilaabay nin aad runtii dhalinyaro ah maalintii xil wareejinta laba maalin ka hor yaa laga hadlay meeshan madaxweynuhu tagayo marka wuxuu yiri niyo madaxweynuhu kiram guriga tagaya ma kiram isaga maartay leh waxaan sheegay kiro kaliya waliba inaan ahayne nin kale uu kireysnaayo ninkii kale oo madaxweynaha u sii baneeyay oo niyo guri man isku man ayuutayno yiri guri dadka Soomaaliyeed madaxweynaha ay ku abaal mariyaan kadib dee wixii shakay baashi markii dambe waa la gudo galay xoggeeda marka waxaa kiciyay Sheekh Xisi xoggeeda iyo in si practical loo gudo galo isaga maaragtay amaanteeda iyo mudanteeda iyo credit iska leh halkaas maaragtay ka bilaabatay sidii hadda uu sheegay walaalkay Cabdirashiid waxyaabo badan iyo runtii intii hawshan lagu guda jiray soo ifbaxay oo ay tahay boog dhan in laga qoro runtii astaxish in boog laga qoro maanta yaa ugu dambeysay maanta ma ahan saacado ka hor gabar ila soo xiriirtay oo Scandinavian ka joogta yaa waxay ii sheegtay dahab ay leedahay inay dhaqaale inay haysatay laakiin si kale wax ka maartay waxyaabo kale ugu jireen lacag kaash aan ahayn laakiin dahabkeedii ay geysay meel oo soo gaday marka waxaan ku iri dahabkaaga iska hayso haddii maartay wax hadda duruuf oo ilaa heerkaas gaarsiisan ma jiraan waa sadaqana qofku hadduu awoodo waay may waxay tiri aniga oo dad nafsi igu noqonaysaa haddana hataan ka qayb qaadan waay marka qaar waa aragteen xoolihii miyiga soo waday oo suuqyada keenoo gadaya waa aragteen ilmo yar oo saqiir waa aragteen kuwa baahiyaha gaarka qaba yar oo yana waa aragteen oo waliba ilaa ay maanta ila soo xiriirayay isagoo lacagtii wada oo anuun Allah aniga lacagtii yar runteeda Cabdirashiid iyo Maxamed yaa ku qoran iyaga maaragtay yaan soo kala xiriirin doonaa runtii hadda meesha ay wax marayaan aniga qiyaasteeda waxa weeye waa ka xoogan tahay malaha iyo qiyaasta marka hore aan haysanay aad iyo aad uga xoogan tahay aad iyo aad uga sareysaa rajadii iyo yididiladii markii hawshan lagu dhaqaaqay sida ficilka loo gudagelay la qabay iyo haddeertan si ficil meesha oo marayso runtii wax isku dhow maaha arrintan waxyaabo badan ayaan anagu hadda ka baran karnaa oo maaragtay waxyaabo kale haduu lagu implement garay doona hadii Ilaah yiraahdo tan kale waxa weeye oo aan rabo runtii inaan dul istaago waxaan arkay dad badan oo raba inay arrintan siyaasadayaan arrintan wax siyaasad la xiriira ama ay ku lug leedahay
ama loo ekaysiin karo qofkii damiir loo ekaysiin kara maaha. waa arrin abaalmarin ah. abaalmarintana qof kasta oo muxuu ahaa madaxweynuhu waa shaqaale dalka iyo ummadda qaranka shaqaalo ahaa. qof kasta oo shaqaale xataa kabariga qofka ka shaqeeya yaa markii maartay shaqada u dhamaato xafladda farewell party inta loo qabto farewell party-gaas abaalmarin lagu siiyaa oo wax oo standard oo adduunka dhan ka jira weeye. haddii qofku wax yani cajiib oo extraordinary uu sameeyana dee waa wuxuu mudanayaa midan hadda madaxweyne farmaajo oo mudanayo kale. marka arrintan waxaan caddaynaynaa annaga ka muxuu ahaa garbaha madaxweyne ahaan ka saaxiibadiis ahaan ka xisbiga odayaasha xisbiga ahaan waxaan caddaynaynaa arrintan wax siyaasad ah inna waxaa la ekaatee inaanay muxuu ahaa kulug lahayn. inaanay kulug lahaynna waxaa caddaynaya qaar ka mida dowladda hadda ragga saaxiibadan xafiiska yimid yaa wax ku darsaday runtii oo qaangaarnimadoodu tustay in arrintan maaragtay waxyaabahaas kulug lahayn. marka midaasna waa qodob in arrintan wax siyaasada la xiriirin. haddii insha allahu sidaan rajeynayno madaxweyne xasan sheekh iyo wadada fiican ee wanaagsan qodoxda badan hadda uu ku bilaabay ay sii socotana isagana saasoo kalaan oon uga shaqay doonaa in lagu abaalmariyo. taa waa taa. qodobka kale waxa weeye si guud yaa waxaa u muuqata in la rabo in innaga iyo muxuu ahaa innaga iyo dowladda cusub in laisku kan soofeeyo oo muxuu ahaa waddo kale oo qariban oo dalka dib u celisa laga shaqaysiiyo oo dadana gaara leh oo shisheeyaha maaragtay ka shidaal qaadanaya ay rabaan inay halkaas u jiheeyaan. innagu kulleyba ka xisbi ahaan iyo inteeran hadda halkan ku wada jirna bacdama aan ku wada qanacsannahay siyaasadda madaxweyne farmaajo uuna isagu yahay qofka noogu sarreeya innaguna aan ku shaqayno afkaartiisa iyo aragtidiisa iyo taladiisa. isaga ayaa inagana amray naga codsaday na faray inaan maaragtay la shaqayno soo dhaweyno garbana u noqono madaxweynaha cusub. maadaama innaguna aan ka mid nahay garbihiisii waxaan qaadanay taladiisii iyo tusaalihiisii aan qaadanay waana la shaqaynaynaa madaxweynaha cusub. garbahan ka gelaynaa waxbaan la toosinaynaa. حتى قفكي ربا إنه دولة معارضة حل دولة على معارضة ما جوكتو ومن دواء من جوكتو من دواء دولة مدحوينها ورقد أول رئيس القدس عادي عنه وعطن رئيس الوزراء إيذي أنا ولي بقى رئيس الوزراء أنا ولي مارت مقعبين استجي أنا ولي على مساركي يوم عرفت الله سمعين أو هذا الله مضلي هاي الله مع الموت كتبين يتعنوا ملايين قياستي ده مركتانا وحرمنا إن عن إسكفوينه إلا حتى نقف كيسي صح أفكر ودريمي كرا إن عن إنك إنكنا خير ما هني أنا ماركتي فالحمو هو إيمان دولة وأنا كفو جنحي أنك إن دولة يمدحوينها عصب وحكستا أو ماركتي الله فسرن كره إن عن كهر إيمان إن عن كفو جانو ووح عن أجوجنو أو ماركتي إيوه صالح جميع إنه نفري أنا جنا عن قادمني وهي أنت سكدب ولا لي أروح عن ربا إنك وحنا هيتط runtii ay midaysay fikrad dad waxaan afkaar ay midaysay dad waxaan nahay Soomaalinimo ay midaysay waxaana looga baahan yahay talaabo kasta oo aan qaadayno inaan ku jangoyno waxa aan u taaganahay oo xisbigeena u taagan yahay oo ah Soomaalinimo haddii reernimo la aado falxumadan maanta waxaan yeelay waa reernimo arintaas waxaa laga bilaabi karaa hadda meeshan aan ka hadlayno magacii muxuu ahaa isbiis inuu ay malayna meeshaas halkaasaba laga bilaabi karaa oo marka maaragtay la hadlayo iyo doodaha aad ku jirtaan inaad dadka Soomaaliyeed dareensiisaan waxaan uga duwanahay kooxaha kale oo saaxiibadeen ah inay tahay in anagu nahay dad musuqmaasuq ka caagan in anagu nahay dad ka fog reernimada إن أننا وحنا الصوماليين وإكبر الله وتصوماليين من يكون مات
qodob kale waxa weeye dadka walaalihiin oo walaalaheen oo naga fikir duwan inaad nasiib fogeyn oo aad soo dhaweysaan sababtoo ah qofka markasta oo aad sii fogeyso dee muxuu ahay laba talaabo dib kaaga sii degaya laakiin adiga waxaa lagaga baahan yahay inaad qofka sirsirato oo shukaasato oo soo dhaweysato oo maaragtay afkiina inaad isku carfisaan ayaa idinkaga baahan yahay arrinta kale waxa weeye iyadana oo arrinta shisheeyaha oo hadda sheekhu uu markii uu runtii uu soo hadal qaaday innaga shisheeyaha laba degaashinin nabad gaarana laba nihin markasta annaga waxa waaye